waxaa la isku haystay rag tujaaroo la laayay oo halay keeno iyo halka ha lagu xukumaa la isku hayay oo tii afghanistan oo kale dabeetana waxaa la yidhi maye kiina wuu dilay Genghis Khan marka kan wuxuu u diyaar garoobay markaa dagaal waa iclaan xarb labadii dawladood dagaal baa loo diyaar garoobay Genghis Khan ciidan aad u tiro badan buu soo kaxaystay Mohammed ibn Khwarizm Shah ninkan la yidhaahday dawladda tan xukumaana isna ciidan buu soo urursaday magaaladii Arjanda wuu ka yimi isna barigu u soo kacay laba ciidan oo aad u tiro badan baa la iskala hor yimi waxa la isugu yimi webiga Siixoon taariikhyahanada muslimku ay yidhaahdaan Sardaria qolada kalena ay ku tilmaamto waa dawladdan Kazakhstan la yidhaahdo dhex mara goobtaasaa labadii ciidan isugu yimaadeen dagaal adag baa dhex maray muslimiinta oo qura 20,000 baa ka geeriyooday baa la yidhaahdaa dagaalka kan 20,000 oo muslim ayaa lagu waayay Tatarka ama Mongolianiskana waxaa la yidhaahdaa in ka badan ayaa iyagana ka dhimatay 4 maalmood baa la isjafayay oo dagaalkani socday dabeetana markii uu dagaalku adkaaday ayaa dib loo kala yara gurtay labadii ciidan dhimashadii baa ku badatay dhaawacii baa ku tiro batay dib baa loo kala gurtay waqtigii dib loo kala yara baxay ayuu boqorkii Mohammed ibn Khwarizm Shah wuxuu u fakeray fikrad qaldan taktiik qaldan raga badhna waxay yidhahdaan akhlaaqiyan qaldan oo ah inuu insixaab sameeyo goobta inuu ka guuro dabeetana cawaasimta magaalooyinka waaweyn inuu ciidamada dhigto ilaashado isaga iyo ciidankiisa inta ugu badanina caasimadii inay ku noqdaan caasimadii markaa galbeed waqooyi fog bay ka xigtaa meesha la isku dilaya waa ka durugsantay ciidankiisii dib uu ka haystay wuxuu kaloo ku talagalay inuu dee ciidamo kala soo urursado badsado laakiin waxaa jirta isaga iyo muslimka ay isugu dhow yihiin colaadaha dhex taagan iyagana khilaaf alcabaasiya xaggeeda ciidan kama helayo dawla salaajiqa waxba kama helayo qawriyiinta waxba kama soo helayo طائفة الإسماعيلية waxba kama helayo hareerihiisa duwalka ka xiga la iskuma fiicna أطراف الدولة ciidamo saasiya kama soo helin waayo ciddii hareeraha ka xigto oo dhan waa la ishayey muslimku hadduu ishayana ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy walaa tanaazacuu fatafshaluu watadhaba riixukum wasbiruu ina allaha maca asaabiriin rabbi wuxuu leeyahy subxaanaه wa tacaala ha isqabanina oo haddaad murantaan oo isqabataan oo nisaacu dhexdiinna ka dhaco waa fashilaysaan dowladnimadiinna iyo xooggiinnuna waa tegayaa baa ilaahay yidhi wasbiruu ina allaha maca asaabiriin baa ilaahay leeyahy bini aadam hadduu wax wadaago xagxagasho iyo isqabasho lama waayo laakiin ilaahay wuxuu leeyahay sabirka ogaada laba hadday isqabataba aan kala yaacnad waxba ma tarto waa dhaqanka ilaa hadda muslimka dhex yaallaad mooddaa laba hadday isqabato wadaad iyo wabiinba isku dar laba wadaad hadday masaajid isku qabtaan waa la kala guuraantee cidda kalena maxaad u malayn wadaad iyo wabiinba isku daro dhaqanku wuxuu u yaallaa qaaba haddii laba muranto in la kala yaaco caalamulislaami qaabkaasoo kale u yaallay bale inay iscaawiyaan daaye dagaalada tataarku marka ay yaro damaan iyagaa weerarka isku sii qaadi jiray midba ka kaluu is odhan jiray inta aad wax ka sii xoraysatid nebi moxamedna calayhi salaatu wasalaam axaadiista ka sugnaatay ee saxiixu muslimka ku taalla rabbi markuu wax weydiistay ilaahay wuxuu u ballan qaaday inaanu ummadda muslimiinta cadow ka xoog bata oo bannaysta walow dunidoo dhammina haysu tagtee inaan marnaba alla ku sallidaynin
ilaa iyo inay iyagu yihiin kuwa isjafaya ee iniba inta kale gumaadaysa mooyaane. waa xadiid nebi moxamed ka sugan calayhi salaatu wasalaam. boqorkani wuxuu ka fekeray markaa carruurtiisii iyo reerihiisii iyo ciidankiisii iyo wixiisii inuu aad u ilaashado oo aan dhibta badani soo gaadhin. haddii uu ciidamadii meeshii kala baxay, jenkis khan maxaa laga rajaynayaa marka? hadday u bilaabantay shaqadiisii rasmiga ahayd marka. jenkis khan ciidamadiisii buu soo dareeriyey, uzbekistan buu soo galay, wuxuu yimi cawaasimta muslimiinta wakhtiga kan dunida magaalooyinka ugu waaweyn ah. yacni taariikhdii hore marka la eego dowladahan reer galbeedka iyo caasimaadkoodu waa shalay. shalay bayaanku odhanaya indiya goormuu tegayay ingiriisku. waa ku axad britaaniyiin ka soo warramaya wuxuu yidhi magaalo ku taalla indiya muslimiintu markay xukumaysaya murshadabaad baa la yidhahdaa ayuu tegey. markaasuu wuxuu soo diraya uu leeyahy murshadabaad baa ka weyn london kana dhaqaalo badan. kaliba oday kaloo faransiisaa tegey. markaasuu yidhi magaalaan tegey godadkii dahabkee dunida aad moodday in iyada to lagu guray. idan shalay ahayd baris iyo london iyo waxa kani cawaasimtii dunida wakhtigaa ugu waaweyneed kuwaasi muslimku degan yahay buu ahaa. bukhaari markaa waxay ka mid ahayd magaalooyinka ugu waaweyn. 616 hijiriyada markay maraysay ayuu ku sameeyey xisaar. magaaladii buu la go'doomiyey. magaalada waxaa jooga ciidan badan oo ninkii kaga tegey. ciidamadii uu qaybqaybinayay oo meelahan kaga tegay ciidan badan baa jooga. laakiin dadku qalbigay ka dagaalamaane qofku hadduu qalbiga ka jabo waxaad mooddaa inaanu wax badan iska celinin. waxay dalbadeen dadkii meesha joogay iyo wixiiba inay isdhiibaan, laakiin muqaabil ilamaan calanka cad baanu taagaynaa laakiin nabadgelyo hana la siiyo. dadkii badh baa caynkaa yidhi, badhna waa diideen. magaaladii markay isqabatay qolo le aan isdhiibno ciidankan intaa leeg boqorkeenniba tegiyo iska celin kari mayno, iyo qolana aan isdifaacnay noqdeen. waxaa xoog batoo tiro batay qoladii lahayd aan isdhiibno, qoladii lahayd aan isdifaacno. qalcad weyn oo magaalada ku dhex taalla ayay galeen. dabeetana ciidanka intii qalcaddaa gashay waxaa ku darsamay culammadii iyo fuqahadii iyo dadkii waxgaradka ahaana qalcaddii bay ugu tageen. dadka intii ugu tirada badnaydna waxay idhahdeen ma tataar baa la iska celin karaya, aan isdhiibno. way isdhiibeen. jenkis khan dhaqamadiisii u yaqaanu markaa ku dhaqma. qoladii isdhiibtay wuxuu yidhi ammaan baan idin siiye, ee maxaan samaynaynaa markaa? qolada kalean weeraraya. albaabaday u fureen, magaaladii buu soo galay. qoladii isdhiibtay wuu iska daayey. wuxuu yidhi idinku rag fiican baa tiina waa isdhiibteen, haddaba dagaalkaynu wada gelaynaa, qolada kale ayla weeraraysaan. waxaa bilowdaan dhufaysyada iyo khanaadiqda iyo waxaan ay qoteen iyo meelaha kan idinkaa kala garanaya ila dumiya. muslimkii xagga kani waxay u eegyihiin muslimkii deganaa maxay afghanistan waqooyigeeda iyo akraaddii ciraaq iyo shiicadii ciraaq baabkii oo kale weeyaan. waa lala jafay. markii la jafay 10 maalmood ayuu xisaar ku hayay go'doomin qalcaddaasi ama dhufayskaa weyn. 10 casho kadib ayuu jabsaday. dabeetana wixii ku jiray midh lagama sii dayn, waa la gumaaday. markuu qoladii gumaadkooda ka soo jeestay ayuu dib u soo noqday. magaalada intii kaleba wuxuu yidhi codsi, wixii magaalada dhaqaale yaalla ha la soo saaro, dahabka iyo kunusta iyo fidada iyo wixii aa meesha ku haysateen, intaasaan rabaa buu yidhi ha la soo saaro. waa la cabsanayaa. wixii ciidan ka hadhsanaa rag yidhi intii tidhi aan dagaalanana laga takhallus,
intani waa intii awal bay isdhiibtay calanka caddi dhiibatay xoolihii baa loo keenay magaalada wixii dhaqaale yaallayna waa kan baa la yidhi markuu dhaqaalihii isku hubiyey ayuu ciidankiisii wuxuu yidhi waa fasaxantiin haddaba waa fasaxantiintu waa yaan waxba laga sii daynin bukhaara siday u dhammayd dhiiggaa dhegta loo daray gawraca magaaladii dhammayd waa la laayey hantida intuu isagu qaatay mooyaane askartii baaqigii baa lagu sii daayey waa la waday magaaladan iyo siday u ekayd ibnu kathiiro ka warramaya wuxuu leeyahy faqataluu min ahlihaa khalqan laa yaclamuhum ila allah waxay laayeen buu leeyahay dad aan tiradooda alle mooyaane cid kale garanaynin carruurtii iyo dumarkii waa kaxaysteenoo waa fara xumeeyeen bale dumarka reerka ragga hortiisa dumarka lagu fara xumaynayay xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo maxaa la yidhahdaa hablihiisaba hortiisa lagu fara xumaynayay ciddii madaxa ka yara taagta ama isa soo taagtana madaxa laga jarayay markuu magaaladii wixii adduun yaallay qaatay wixii rag joogay dilay wixii dumar joogay la fara xumeeyey ayuu yidhi haddaba baxa baaqigiina wuu gubay baaqigiina wuu gubay bukhaara intii dagaalantay iyo intii isdhiibtayba waa dhimatay magaalada bukhaara la odhan jiray intii dagaalantay iyo intii isdhiibtay labadiiba waa dhinteen wa nuhlik وفينا أن نهلك وفينا الصالحون xadiidkii saxiixa muxuu lahaa nabigay weydiisay mayaanu halaagsamayna mise waana la halaagaya iyadoo dadka saalixiintii nagu jiraan qaala nacam idaa kahura alkhabath buu nebigu yidhi xumuhu hadduu bato ha waa laydin wada halaagaya markuu bukhaaro dhulka la simay buu dhaqaaqay isagoo ciidankiisii wata wuxuu qabtay magaalada ku xigta samarqand samarqand waa magaalo weyn oo zabakistan meesha nimanka la yidhaahday ku taalla waa magaalooyinkii muslimiinta ee caanka ahaa waa samarqandiya agagaarkeeda maalan suqdatu samarqand taarikhda waa ku aragteen waxay yidhahdaan jannaatu dunya arbaca baa la odhan jiray jannada dunidu waa afar baa la odhan jiray suqdatu samarqanda baa ka mid ahayd afarta la tirin jiray suqdada la sheegayo waa tuulooyinka magaalooyinka yarar ku xeerxeeran samarqanda waxay idhahdeen 5 maalmood oo aad dhan kastaba u socoto 5 maalmood socod ah ayaa beer iyo bustaan iyo dhul cagaaran ahaan jirtay waxay idhahdeen meesheeda sare haddaad korto abidkaa saxaare iyo meel xun ishaa qaban mayso webiyadaa wada dareeri jiray dhul aad u qurux badan buu ahaa dad aad u tiro badan oo muslimiin inay degan yihiin magaalada bukhaara wixii uu laayay mooyaane wixii uu soo kaxaystay maxaabis buu soo kaxeeyey ibnu kathiir maxaabis ibnulahir aan idhaahdo ibnulahir maxaabistaa markuu ka warramayo wuxuu leeyahay qofkii daala inta lagu soo socdo bukhaare iyo loo kala socday qofkii daala ama socon kari waaya waa la dilaa inta kalena waa la raraa waa inay socotaa haddaad daasha oo hadda wax lagu dhibo ama qaadi kari ama socon kari waydana waa lagu dilaya dee dadkii dilka ay ka cararayaane qofkii ku ruushin karaaba waa soo socday samarqando markii loo soo dhowaadayba wuxuu rabaa inuu reer samarqando bajiyo inta aanu dagaal la gelin maxaabistii muslimiinta intuu qaybqaybiyey ayuu 10kii walba calan buu u dhiibay kii ah calamadii tataarka ah 10kii qofba calan buu siiyey waxay reer samarqando arkeenuun waddan dhan oo calankii wada sita oo soo socda waaba muslimiintii maxaabista ahayd kuwan calanka sitaa ciidamadiina waa ka sii dambeeyaan markii meeshii uu arkeen dadkii haziima nafsiya baa ku dhacay qalbi jab maxaabistii wuxuu ku qasbay inay dagaalamaan haddii kale waa laydin laynayaa buu yidhi ciidankiisa qoladii gamuunlayd ahayd ama waxganaysayna wuxuu yidhi nin walba maxbuus qabso kaxayso gaashaanku waa isaga isu dhig dabeetana gamuunkaagana rid kanna ku beegnow hadduu nuuxnuuxsadana gowrac waxaana yidhahdaan shield bashariya yacni dad lagu gabbado ayuu baaqigiina ka dhigtay magaalada dacalkeedii markuu soo gaadhay si magaalada loo argagaxgeliyo
wixii intaasoo dhan ka soo badbaaday magaalada